wadankiisa u shaqeeya wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal arakaawada hadda fayskeedii hore u dhamaaday hadana insha Allah laami in laga dhigo isku xireysa galdagob iyo gaalkacyo maanta goboltooyinka gobolka waa jooga injineeradii oo qaarkood ay ka yimaadeen meelo fog oo geeska ugu dambeeyay Yurub waana la joogaa alxamdulillah rabbil caalamiin gudigii waa joogaa wadada garanaysa gudiga uu ahaa shirkadii dhisaysay isxalqaan gorod waan la joogay oo odagii shirkadda ah hadee munaasabadan waxa weeyaan inaanu insha Allah wadada furitaankeedina waa la joogaayo fayskan hadda 18 kilomitir oo hadda gabagabada ah in la furo waa soo socota insha Allah usbuucan maalmaha soo socdo hadana goboltooraha noo yimid oo badana wadada hawsheeda markii la furayay iyo marar badan soo noqday injineer waraala gamuure oo reer Oslo Norway ah isagoo runtii meel dheer uga yimid wadadan inuu hadda kaalinka uga aadan ka qaato injineer Hurshe injineerkii wadada markii hore fariisinteedii iyo hawsheedii hore hadda saacadan ku jira wadadan muddo aduu ku dhow 20 bilood ka hor yaan soo maray laba maalmood ku wareegay waa soo qaybay kadibna waxaa la dhagax dhigay bishii Oktoobar koodeedii maalintaas ay joogeen gudoomiyaha baarlamaanka wasiirkii hawlaha guud gudoomiyaha hay'adda naasho wasiirkii informationka Soomaa wasiirkii informationka gudoomiyaha degmada ciidamadayaasha shacbigii magaalada oo dhan ay joogaan ayaa la dhagax dhigay maalintaas wixii ka dambeeyana shirkadda isxilqaan baa shaqadii la wareegtay oo waday hadda waxaan joognaa adigu 16 kilomitir bar meelaha ay shaqadooda soo qabatay shirkaddu si hagar la'aan ay u qabatay goboltooraha shirkadda sameynaysa jidka gudiga وحل صارن إني سميسو جدك لمانتين وين سلامية وحنا نسكو سلامية سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحلي رادا محمود حسين آدن إنجير وحن كيمد ودك النووي صوابت أنو إمد وكلينا دل حيث ما نيمان شقادي ديوان سو جوجي وحنا وإمد وحقبتك جد كان حالة دي سوسيدة إيتاينا متقارنة عن سوحة ويرسده سي أن بوريو ولا لها كله يدتك جعل إنك قيب غاتان خيرك ودنا سيلو بدنا مسترهاني دم مسترال إلى الشلة إيمان توحن كجرا وددا شلة كنترول بانسو صار لي أنا تجي إنه كيلومتر أنا فيرين إنه قاب كيلو لسي يصير إيتاي ما أنتنا إنجرور guddiga u qaabilsan jidka iyo shirkadda dhisaysaba waxaan u istaagnay maanta mitir baan waxaan u istaagnay jidka annagoo kontrolayna carrada la saaray qaabka looga shaqeeyay iyo hawsha laga qabtay inta ay leeg tahay runtii waxa farxad ii ah oo aan marnaba soo koobi karin anoo ka yimid Norway inaan jidkaas qaabka loo sameeyay aan aad ugu faraxsanahay jidkaas aad ogtihiinba waxa loo qaybiyay laba fayska koowaad oo ah in la geed qaado lana saaro carrakaawada fayska labaad oo ah in shaygii la saaro iyo laamigii
waxaan ku jirnaa hadda waa fayska koowaad kaasoo ah maanta la marayo meesha la yiraahdo Xero Jaalle oo 18 kiiloomitir u jirta magaalada Galdogob 18 kaas laba kamid ah weli carro Turki baa ku jira laakiin inta kale way dhameystiran tahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wax qabadka laga qabtay jidkan qaabka looga shaqeeyay oo hagar la'aanta ah iyo qaabka la isku xil saaray aniga injineerku markaan jidka kontrolnay dabcan hawl markii la galo meelna way dhimataa meelna way ka fiicnaataa si loogu talagalay labadaba waan aragnay meel waxaan aragnay qaarkood kiiloomitirka qaarkood loo sameeyay aad leedahay laamiga kaliya ka dhiman ee wax kale u baahan yahay malaha loogu hagar baxay sidii loogu talagalayna loogu qabtay runtii fayskan koowaad waan dhahnay wuxuu ku saabsan yahay carro Turka oo la geyn doono ilaa iyo mataqaana bayra waxa ku baxay lacag qarash aad u badan waxaan dhammaan qof kasta oo jecel inuu ka qayb galo khayraadka jecel inuu dhismo jidkaanayto aan ku boorinayaa wax Allah wuxuu kaga qayb qaadan karo inuu kaga qayb qaato lacagtu yaraan ma laha ninkii $1 ku bixiya jidkay u galaysaa biidmillaahi alkariim baabuurkii marana ajarkeedu ka helaya ilaahay idinkiisa aad baan ugu faraxsanahay inaan Norway uga imaado jidkan maantan aan taaganahay aan la taagan gobernatoorihii mataqaana gobolka Mudug farxad bay ayadana ay tahay inaan gobernatoorha aan iskarab istaagno annagoo danta aan qoraxda u taaganahayna ay tahay inaan sidaan jidkan ku dhameystiri lahayn ilaahay idinkiis aan u wada taagannahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan dadka akhyaarta isugu timid munaasabadan qiimaha leh la isugu yimid shaqadii ka socotay wadada Galdogob waa dhamaantiin waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku mahadinaynaa inuu waafajiyay amalkan khayriga waa riyo rumowday wax badan baa lagu hamiyay in hawshan la qabto maantana waa mid rumowday marka ugu horeysa waxaan u mahad celinaynaa guddigii isku xilqaamay hawshan ballaaran in loo qumay inuu dhaqaalaha u ururiyo hadaf oo ujeedadii ay kala haayeen maanta la oran karo way xaqiijiyeen dhaqaalihii ay soo ururiyeen dadkii ay gabadha caanaha gadaysa iyo midda yaanyada gadaysa iyo qofka caanaha keensada iyo kan miyiga jooga reer miyiga iyo kan meherada yar iskale kan ganacsatada gudaha jooga iyo inta dibadda jooga waxa ay ka soo ururiyeen meeshii ugu munaasabsanayd markii ay geliyeen lacagta wax lagama dayin lama boobin lama cunin dhibaatooyinka Soomaaliya haysto dhan way ka badbaaday waxay u raadiyeen hawshaas sida ugu wanaagsan loo qaban lahaa waxay raadiyeen company qalab iyo khibrad bale oo daacadnimada lagu yaqaan maanta kambanigii shaqadii loo dirayna injineeradii dalka gudihiisa iyo dibadiisa bay isaga yimid wadada standardka lagu dhisay iyo sida loo qabtay waa mid ay amaanayaan amaanadaas waxaan leenahay waa gudateen Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinkana naarta idinka xoreeyo intii wax ku bixisay waxaan leenahay wixii aad bixiseen maanta miraheedii baa la hayaa shaqadii sidii ugu wanaagsanayd loo qabtay iyo meeshii ugu munaasabsanayd oo la galiyay waxaan sidoo kale amaan iyo bogaadin u soo jeedinaynaa kambaniga isxilqaan iyo maamulkiisuba sidii hagar la'aanta ahayd ay wadadan u qabteen iyadoo la xaqiijinayo inaysan u qaban meeshan lacag baad ka qaadanaysaan wax taagtaaga laakiin ay u qabteen meel ay leeyihiin oo ay u hagar bixeen oo ay ku hulbadireen idinkana waxaan leenahay maalka Allah idin barakeeyo intii wax ku bixisay waxaan leenahay wixii aad bixiseen oo aad hor Ilaahay geysateen waa sadaqa jaariya amalka aad ku bixiseen insaanku hadduu dhinto sidoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam yiri saddexdii waxa weeyaan uusan go'ayn amalkiisu ayay ka mid ahayd sadaqa jaariya wadada intii la marayo qofkii wax ku darsaday oo ajar ayaa kaaga socda inta dhimanna waxaan leenahay aynu ku darsanno oo hawshaanu waa hawl weyn oo sadaqa jaariya qofkii naftiisa wax ugu darsanaya qofkii waalidkiis wax ugu daraya intaba waxa weeyaan xoolaheena waxaynu ku leenahay waxaynu sadaqaysano oo Ilaahay hortiisa geysano waxaynu ka tagno cid baa qaadanayso say doonaan bay ka yeelayaan marka qof walba oo Ilaahay agtiisa wax dhigo bangiga Ilaahay aynu dhigano qofkii wax ku darsan karo waa sadaqa jaariya waa hawl aan tuhun lahayn waa hawl aan shaki lahayn waa hawl sidii ugu wanaagsanayd maanta loo qabtay oo aad arkaysaan injineeradii gudaha iyo dibaddaba injineer Buraale iyo injineer Hurshaba inay qireen sida loo qabtay inay tahay sida ugu wanaagsan iyadoo horeyna aan ugu mahad celinay marar badanna ay soo booqatay hay'adda wadooyinka ee Puntland BHA ama Neesha oo iyaduna intaas ciidda iyo baaritaankeeda iyo talada wax walba iyaduna kaalinta ay lahayd ku qaadatay wadadu maaha wada qabiil leeyahay wada koox leedahay maaha waa wada ummad Soomaaliyeed ay leedahay shaqadaanuna shaqo qof qaban karana maaha shaqo qabiil qaban kara maaha shaqo degmo qaban kara maaha shaqo gobol qaban kara maaha waa shaqo qaran hawshii uu qaban lahaa weeye hawshan ahmiyadda ay leedahay waa tiro badan tahay
inay isku xidho Itoobiya iyo Soomaaliya xuduudda Itoobiya oo degmada Galdogob ayay ka soo baxaysaa ilaa Gaalkacyo ayay tagaysaa ilaa Gaalkacyo ayay ka tagaysaa ilaa iyo Garaacad ayay tagaysaa waxaan rajaynaynaa kalluunka subaxii Garaacad laga soo saaro in maalintii looga qadayn doono Galdogob waa hawl sidaa u ballaaran hawsha waxaan leenahay dawladaha waddanka ka jira Puntland iyo federaalkuba inay kaalinta ay lahaayeen laga sugayo waan rajaynaynaa kaalintooda inay ka soo baxaan qof walba dadka ummadda Soomaaliyeed meel uu joogabana waxaan leenahay hawsha sadaqa jaariyada gacan ka geyso Ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisana dhigo innagana intaana joogta meesha waxayna la gudboon inaynu waxa aynu ku bixinay wax ama intaana ina midka ay wax ku bixisay inaynu maanta ay haboon tahay saynu u dhameystiri lahayn aynu uga xaqiijin lahayn dareenkeena iyo hamigeena ahaa inagoo xoolaheena iyo xooggeena iyo aqoonteena ku xisaabtamayna inaynu dhulkeena dhisano iska wax u qabso ku dhisano maanta inaynu wadada fayski koowaad ee garaabalka ahaa oo meel fiican marayo fayska ku xigana insha Allah ta'ala uu laamiga noqdo oo iyadana aan marna laga baaqanayn hadii alla idmo dadka adduunka hore u maray ee diyaaradaha iyo dayax gacmeedyada samaystay cidi uma samayn meel uga timid iyaga fakaray baahidoodii bay arkeen baahidoodii ayay maskaxdooda ka shaqaysiiyeen maskaxdooda markay ka shaqaysiiyeen baahidoodii ayay dabooleen waxaan rajaynaynaa wadadaanu inay noqoto mid Soomaalida oo dhan misaal u ah tusaale u ah in hadii qarankii Soomaaliyeed burburay shaqadii uu qaban lahaa dadkii Soomaaliyeed ma halaagsamin iyagu inay qaban karaan iyadana waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaan leenahay marka qof walba oo inagayna kamid ah talo inuu uga qayb qaato waa looga baahan yahay hadduu dalka joogo iyo hadduu dibadda joogaba qof walba oo inagayna kamid ah tabar inuu uga qayb qaato waa looga baahan yahay hadduu dalka joogo iyo hadduu dibadda joogaba qof walba oo aqoon leh inuu aqoontiisa ku tabarruco sida injineer Buraalo oo kale oo Norway uga yimid inuu aqoontiisa uu soo bartay inuu dalkiisa ku anfaco oo wadadan maanta controlna ku sameeyo oo uu waxa weeyaan wixii uu soo bartay iyada ku dabaqo inta dhamaanteen waa leeyno ka baahan yahay waxa la rabaa keenna miyiga jooga xoolaha xirada ku jira inuu soo saaro keenna magaalada wax ku haysta inuu magaalada wax ka bixiyo keenna dibadda jiraan inuu wax la wuxuu ku soo dari karo oo uu awoodi karo oo uu sameeyo waxay runtii tan u hididiilo iyo farxad u tahay gobolka Mudug isbedelka ka dhacay waxaan ka guurnay qabyaaladii iyo kala qaybsanaantii waxaan u guurnay iskaashi iyo wax wada qabsi iyo midnimo iyo inaan danteena garanno waxa wax lagu Ilaahay lagu mahadiyaa maanta in hawl walba oo gobolka ka socota dadka gobolku ay u heelayeen inay dhamaantood wadajir ay wax uga qabtaan gacmuhu wadajir bay wax ku qaban karaan iskaashiga iyo wadajirku waxa la yiraahdo tusaale waxa waa xayawaanka shinnida la yiraahdo وحيوانان حبد النولين ودجر iyo midnimo u nool waxa Ilaahay ku arsaaqay waxa Ilaahay uu bixiyo wixii ugu wanaagsanaa ugu macaana malabko dawana waxa ugu macaan badan waxa mid ka ugu liitaana waxa la yiraahdaa xayawaanka doorshaanka la yiraahdo wax taro uu leeyahay lama arko mid raacana lama arko doorshaanku intuu saxarada duubu godgeliya markuu godka gelinaya mid kale u yimaadayo marka ay ku diraraan ana godka gelinaya iyo ana godka gelinaya marka tafaraaruq iyo khilaaf iyo kala qaybsanaan miraheedu midaas ay noqonaysaa iskaashiga iyo wadajirkana miraheedu waxay noqonaysaa hawsha maanta aynu dul taaganahay markii la iska kaashaday oo tala iyo tabarba la isku geeyay dibad iyo gudaba la isaga yimid inay tahay maanta hawshii qaranka Soomaaliyeed uu qaban lahaa in shacabka ay qabteen waxaan rajaynaynaa marka qof walba kaalinta uu ku leeyahay inuu ka soo qaato annagu wajiga labaad ayaan xafiiskayga gobolka ka qayb qaadanaynaa boqolka fuuso ugu horeeyo daamurkaana waa bixinaynaa hadii alla idmo qof walba waxaan leenahay wixii aad ku qayb maanta wadadaas gelisid ayaa ku kaydsamaya nin waliba wuxuu noo qabtay wuxuu qaladku noo geysto diiwaanna qaran baa jiro loogu qorayaa qof walba waxa weeye 1 mitir hadaa doonaysid inaad ku darsatid 1 mitir oo isku wareega hadduu ugu bato waa $17 haday wadada kiiloomitirkii 120 kun noqoto waa $17 qof aan $17 bixin karin baa ku jira miyi iyo magaalada laba caagadood oo caana oo keensado ama saddex caagadood oo caana oo keensado ayaa qofka reer miyiga ay tahay haraga ama neefka ayaa waxay u noqonaysaa 3 mitir oo ku dhiso keenna magaalada joogaana $100 hadduu bixiyo 5 mitir ayuu dhisi karaa ama 6 mitir ama 7 mitir marka qof walba oo inaga kamidow mashruuca wajigiisa labaad oo laamiga inaynu 1 mitir project inaynu ugu magacaawno qof walba 1 mitir oo laamiga inuu soo dhisi lahaa oo wax uga bixin lahaa inuu falankeeda galo waxaan uga mahad celinaynaa inta aqoontooda ku tabarucday inta qalabkooda ku shaqaysay intii xoogooda ku shaqaysay intii waqtigooda gelisay oo dhaqaalaha ururisay oo dhaqaalihiina meeshii ugu fiicneed geliyay waxaan leenahay mar labaad idinkuna Ilaahay ha idin barakeeyo u socda oo ha ka daalinina ilaa hawshaan ay dhamaato oo wadadaan wadahay weeye oo Soomaaliya iyo dalalka Afrika oo dhan isku xidha ilaa ay ka noqoto ka daalinina ayaan idin leeyahay balanteena waa iska wax qabso dalkeena inaan ku dhisano inagoo halku dhigeen yahay adna dhoobada adna dhagaxa ninkii dhunta dhaxal kuma laha
aynaanu kala harin dhammaanteena aynu dhisno in alla inta ka qayb qaadatay oo wanaag uga qayb qaadatay waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo hawshana fari kama qodno faan noole inaynu aynan ka daalin halkeeda aan ka sii wadno تقرا مقادنا توليا مراعنا قبل ما يثبتونا قرني مو متانا صومالية تلوى واتي إلهي تعبنا واسكاشي تقرا مقارنا توبيا مراعنا قبل ما يسكتورا قرني مو مكانا تورولوجيو بين سوقيو قبيل ما كتب احنا تعالي تاتي هاي سقطنا تيرتنا من قونا تعالي تاتي هاي سقطنا تورولوجيو بين سوقيو قبيل ما كتب احنا تعالي تاتري ما يسوق تلنا تعالي تاتري